waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo ah macalin maxamed ibraahim. Halkan waxaan kasii wadanaynaa casharadeen imtixaanaha ahaa aan ku baranaynay QuickBook Offline-ka. Maanta waxaan qaadanaynaa laba dhacdo aad u muhiim ah sida kambaniga loo create gareeyo, sida kambaniga loo sameeyo casharadii ka horreeyay ayaan soo qaadanay, iyo sida loo active gareeyo featureska labada cashar oo ka horreeyay ayaan ka hadlay. Maanta waxaan rabnaa markaa ganacsiga bilaabato ama aad kambaniga asaasto sida loo record gareeyo lacagaha QuickBook sida loo geliyo ee markaad alaab soo iibsanayso sida loogu record gareeyo QuickBook ayaan isla baranaynaa. Haddaas la tagno halkaas la tagno waa kambanigeena waxaa la dhahaa Barwaaqo Audio Company ayaa la dhahaa, oo waxaan bishii koowaad afarteedii 2020 Mr. Ahmed ayaa invested capital into business in cash 200,000. Mr. Ahmed ayaa wuxuu ku investment maalgashi ku sameeyay lacag capital oo cash ah $200,000. marka sida lagu record gareeyo QuickBook ayaa rabnaa in isla ogaano oo offline-ka marka kan aad tagaysaa markaad tagto tan laha dashboard ayaa la dhahaa, waa khaanadihii waa sida loo geliyo wax mid kasta waxbay qabataa, tan purchase order, receive inventory, enter bills, mid kasta waxbay qabataa. marka waxaan rabaa sida marka ganacsi bilaabdo sida lagu record gareeyo waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay record deposit ayaa tagayaa, halkan ayaa ku dhufanayaa meesha ku qoran tahay received from meesha ayaa lacag kaaga timi ama qofka lacagtan businesska start bilaabaya oo magaciisa ayaa ka gelinaysaa. halkaas la tagno magac waa maxay, waa Mr. Ahmed waaye, investment uu maalgashaday ganacsi waaye. marka halka waa maxay waxa ku qoraynaa Mr. Ahmed. QuickBook tagayaa xaggan waxaan ku qorayaa Mr. Ahmed quick add ayaa leeyahay waa ku daraya waayo waa cusub yahay muxuu ahaa meesha ugu horeeyay waaye aan geliyo adan ayaa leeyahay okay ayaa leeyahay. halkan waxaan ku qorayaa from account waa maxay waa capital ayaa leeyahay oo capital anaa soo maxaa soo active gareeyay casharadii hore ayaa kusoo qaadanay. halkan waxaan leeyahay capital ayaa leeyahay lacagta halkan aan ku qorayaa 200,000. then waxaan leeyahay save and close. then waxaad tagayaa transaction labaad ama dhacdada labaad maxay ahayd muxuu ahaa bishii afraad shanteedii purchase wuxuu soo gatay Mr. Ahmed 15 xabo audio system ah, calaa xabo waxaa laga siiyey 3,000 ayaa laga siiyey. muxuu ahaa bill numberkiisa waa maxay waa 8012 from wuxuu ka soo gatay Lenovo Electronic. marka waxaan soo gatay audio system ayaa soo gatay oo waxaan ku soo iibsaday credit deyn ayaa ku soo iibsaday lacag ma bixin. marka alaabta wax deyn ku soo gadato sida lagu record gareeyo QuickBook waa isla baranaynaa iyadana. waxaan tagayaa meeshan ay ku qoran tahay enter bill waxaa la geliyaa xaggaas la aqoon waa maxay waxaa ku qoran meesha enter outstanding bill from vendor. lacagta aad siinayso outstanding bill waxaa lacagta aad bixin doonto mustaqbalka waaye aad u bixinayso oo siinayso qof kale aad ka soo iibsatay baa xaggan ayaa ku dhufanayaa enter ayaa leeyahay. halkan waxaa ku qorayaa vendor waa maxay waa qofka meherada alaabta ka soo gatay, meherada alaabta ka soo gatay magaceeda das leegna waa ta maxaa la dhahaa Lenovo Electronic. marka ku qoraya Lenovo Electronic xaggana waxaa ku qoraya bill reference marka waxa la yiraahdo quick add ayaa leeyahay waa ku daraya marka ugu horeysa waaye. xaggan waxaa ku qoraya reference numberka oo reference numberku Lenovo Electronic billka maxaa ku ahayd waa 8012. halkan waxaa ku leeyahay items ayaa leeyahay meesha expenses items marka meeshan items ayaa leeyahay meesha ku dhufanaya. then halkan waxaa gelinaya alaabta aan soo gatay maxay ahayd audio system alaabta soo gadatay way halkan waxaa leedahay enter ayaa leeyahay then yes ayaa leeyahay. then meesha ku qorto meesha waxaa leeyahay inventory part ayaa leeyahay. then meeshan waxaan ku qoray meeshan ay tahay COGS amount waxaa loo soo gaabiyey cost of goods ayaa loo soo gaabiyey sold. meeshan waxaan ka dhigayaa purchase ayaa ka dhigayaa. meeshan ay ku qoran tahay income account meeshan waxaan ka dhigayaa sale ayaa ka dhigayaa waa alaabta meesha income ka helayso. then okay ayaa leeyahay. halkan waxaan gelinayaa inta xabo alaab aan soo gatay audio system maxaa soo gadanay
audio system waxaa soo gadan 15 xabo ayaa soo gadanay xabadina waxay ahaa $3,000 15 xabo ayaa leeyahay xabadina maxay ahayd $3,000 total maxay okay ayaa leeyahay then total isku qoonsa 45,000 marka waxaa leeyahay save and close sidaas ayaa loo sameeyaa haddaad isweydiin audio system maxay audio system waxaa samiicadaha iyo waxyaabahan way samiicadaha mataqaanaa microsoft-ka oo mataqaanaa wax lagu dhageysto waaye aroosyada ama muusikada waxyaabaha samiicadaha waaye audio system waxa waaye markan casharkeena waxaan jeclahay inaa inaha kusoo koobo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.